aniyaku maanaan kaaley kalsooniisiisa ay kaalaamaan aniyaku maanaan kaaley kalsooniisiisa ay kaalaamaan هلي هبلو هايبو هلي تمو مربنا يا نطوق توغا يا نطوق توغا ورتو كبا ولا سينك كهلو تلدين سيدي هور ما هدواتن الله هديد بنعدن تمو حتى تلدين توسيسا ورتوق ما عدن تورا يكو يا ساليري وروا قلدن تاهي رق ولاalo wuxuu ku dhaamo horaa loo waay war kun shilin oo soo hoog akin ka mogon ikun oo soo haal akin ka mogon iska wijigo ma war waxa la yiri xurguf urfayo ma leh dadkuna way saxaganayaan eebago gabaga rati daba go'an inta ka loo dhiga moogaya inuu nagu tuntaan ka cabsaha waraana fatahaad wabiyaan maqli jirnay fatahaad gabay miyaa bilaabatay arada been wax ma tartay waa la tabcada si aad u tanaadin warna miyaa may basiin haaye lanka lama goodli leeyo bilaay iyo soo baranay meelan intii duduub isku dhiki sababta oo geega gobolada dhexe wali ku dhiyaan sheego gaalka ay binaanba oo ka dhii oo la ka taageero madawiina goorgoor adaada binaanba oo ka dhii oo la ka taageero madawiina goorgoor dhuusmara binaanba oo ka dhii oo la ka taageero madawiina goorgoor reed waranisin haya dooni meenidiya bedeleen waanu rabnaa wallahi waanu rabnaa billahi waanu rabnaa dalka yaga iyo diintanada iyo dadka yaga wax badbaadinaya aad baan ugu baahanahay waanu rabnaa waanu soo dhaweynaa taaliyaal soo dhaweeya saabka bug hadawaaden antaas ma iin dheer madawiina haaf oo gaalka ay dhaha fidhiya aniga madaxweyne ka ah galmudug meelika leeyo durduriyaano bugbagleyn leh korgaadeen iyagoo taageerayaan goorgoor dukaankii faas ku reebna had ilbaab iyo liska dhawi warani waxay ugu daran barnaamijka ka dhacay abudwaaq calamadii maamul goboleedyada ay soo bandhigeen calankii Soomaaliland ay ku soo dareen yaa taasumayda ceeba midnimay ka dhigan tahay abdulo walaal sheegas gowdhan ay kii dheegnay war taas sharciya ka yaalaya diidi kara war madaxweyne qorqor shalay markii la doortay wuxuu ka soo lugay howlkii doorashada wuxuuna socodku ku yimid madaxtooyada cusub kadibna xarag uu ka jaray horina waa u galay soo laandheer ilma garana banaadigi ma ahan war wasiirka arrimaha gudaha qarafaan oo culayskii galmudug ka degay maanta wuxuu kormeeray wadada u dhaxaysa dhuusamareeb iyo guriceel oo dhalinyaro is abaabusho waayahan dayactir ku samaynaysay hadda waa soo kormeeray dhalinyaradii meesha dhismaha ka wadana wuxuu ku guubaabiyey inay hawsha halkaa ka sii wadaan war madaxweynaha cusub shalay la doortay qorqor hadda ka hor markii ololihiisa waday wadadaas 20 kun ku bixiyay wuxuuna yiri haddii la doorto dhismaheeda ana la wareegaya hadda madaxweynaha waa la doortay hadda howl u taala hala wareego war qarafaan culays kama degin hadda howl u taala hirshabeelle inuu godax gareengaya laga rabaa war isla gareen godobka ka galin war waxa la yiri madaxweyne waare xafiis kala loo diyaariyay waliba ada caalamka la shaqeysa jiray urur goboleedka igad la shaqeeya leeyahay arhoy waare gareen nabadii nolol ka fasagaday ala kulli xaal naag la fura fadhi u mayaala la yiri kii wax furana falkiisa alla ku celi saddex iga furanta aryaanaga shibda taas sharciya ka yaali war ma haysiine doorashada Axmed Cabdi Kaariye shalawaati la soo dhaweeyay madax iyo majaba doole maatana waa ku ugu hormaray dooliyam iyo moota kabiirka baalili had maaha daabow garaana loo baxshay naga shibda warwarka naga dhaxgelinine madasha xisbiyada qaranku waxay dhaheen doorashadaasi sharci kuma dhicin Donald Yamamoto inuu soo dhaweeyo wuu ku qaldanaa haddana waxaan u aqoonsanahay nin doc jira war arday macallin aayad meeriya maalin gafti leeyahay basan aragdan ardayga gafan war waa kuwii doorashada Axmed Madoobe taageeray tan qorqor maxay ugu duuntay ku diideen hashim maqaarka diidaysa meel duldulaalay ka fiirida argoy wadin halmaykiin jeey sagaartam isku biraysato yaa taa sharciya ka yaale waxa la yiri adduunyoy waalaleey adduunyoy waaya badan warwareeg waqtiga ku yiriye lugtiya madaxiya lugtiya dhagahi isku qabo madaxiya lugtiya dhagaha indhihi isku qabo war fartay wadnaha isku qabaan la isku ogaay qoortay lugta isku qabo miyaad noo keent war baryaawun bakar ikabada la isku tolay abdullin la yaabtoy yaxaad ku falay warkiisa taa sharciya ka yaale daduu sheeka doontaya ay maxaan xoola dhaqan jiray dhar maxaan lahaan jiraaye
ummadda sagaaro dugadaas yakiiliyaabana inood karka geedo kareebasa war odagu cayr miyuu ka cabana gooyobow haddaad cayr ka cabsayso xoolahaagana sagaaro yihiin adigaa cirka roob ku og war madaxweyne qorqor wuxuu yidhi dawladda xiriir leedahay in lii dhaho waa ku faraxsana uu yidhi warnamiyo ani warsiinhaaye boorta gareemadi fatagbilisi wiilagii reer gareemadaasa teleefon andiri maadaamaan urudkii ahaa hambalyo walaalkay janaaw haka dhowaaye wa eri doondono isla fuulne walaalow min fadlag aylii laga doognay ya eri madeeyow qorqor warkaaga ma yaqaane yaraanka ilmo gareen waa goodax gareen aryaadhaha taa sharciyaa ka yaale waxaa la yidhi fow gareen yaa goodaxadaan gobolka jawheerey guube gareen yaa goodaxadaan gobolka jawheerey guube haye cabdullo waxaan ka baqayaa sharciyaa ka yaalaad maanta oo dhan ku haysaaye qofka koowaadoo lagu qaado sharcigaas inaad uga noqoto xabsigana aad iga soo wici doonto yaa taa sharciyaa ka yaalo mini taleefon lay oggolaado sida xasan daahir aweesaan layf soo geli lahaay warwar ma haysiine maxkamadda gobolka banaadir maanta in soomaali ay dhaaftay ajnabi tallaabo ka qaaday nin suuriyaan oo shirkad soomaaliya ay dulmaday oo xaqiisii ay duusiyeen ayaa maxkamaddii u soo dacwooday kadibna doctor muuse shirkaddii u xukumay xaqii suuriyaanka la dulmiyey waa u xukumay marka adeer muwaadin iyo ajnabiba cid la dulmi kara ma jirto aroo sharaf weynaynoo tahay sugbahe yaa taas in sharci ka yaallo ma ogayno miyaa ewel warnamiya wal mooshiidin ayaantun wal alla walaagi iidin ehoo gobolkanka sugun gedilika daldalohay aroo misigamaa ka bislaatayna meesha reer jubbalandna wali leeyina iidinku nahniidaad gureew maylafadoha inoo jubbaland laka afgembiye weereng war jubbaland ilaa Omar gareen la geeyey ciidanku waa ku soconaa aga war awowgood la naarmaseedkaad barakicini warnimada gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo jooga gobolka Gedo Liibaan Cali Yarow wuxuu yiri askarigii iyo sarkaalkii siyaasadda qabiil mid lagu helo tilaabo adag ayaan ka qaadi doonaa war Liibaan Cali Yarow kutubka 4.5 ma agriisana ma aha yaa madayow naga shibda taa sharciyaa ka yaali war Cabdullaahi sharciga maanta kaliya aad wada xaqad ka soo xambaarsatay war gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliimo Yaray waxay tidhi Xaliimo wiilana ma aha doorashada galmudug sharci ma aha may tiri war ilmo gareen hooyadood ma aan Xaliimo Yaray war ma sidii jawaari xilka laga qaadi rabaa war hanala waalanina waxay tidhi doorasho qof iyo codaha dhacaysa xildhibaanka raba inuu soo laabto oo aan wax kale ka fakarayn ee kursigiisa ilaashanayana dalku u xayiraan maayo yaa taas waa soco wayne aan oradna ahaahe war xildhibaanada dawladii artay ilaa hatana dhaafidhi ma aqbalaana aryaadhaha xildhibaanada sanadkan lacag ku maxiramiyaa la yidhi oo cad cabdullow hadda sharciyaa ka yaalna lahayda laaluushana wax ku dooratana waa rabtaa yaahu ragna waa gadistaa geelna waa galgashaa sharciyaana ka yaal war xildhibaanka ayaatiya ayaa deegaankiisa waxaa ugu dambaysay markii la soo doortay doorashadii kale uu ku laabtay baabuurkii uu watay waa ka jijibiyeen asagana laftiisii wuxuu kula fogaday ibixi mar dambe xildhibaan ma rabee ibixi iga bixi allahayow siyaasadii badweeye iga bixi miyuu yidhi war ma haytana xildhibaano oo eelbuur ha ka jeedaan yadad solle shireen weliba ereena eelbuur may ka dhisnay garoon caalami ah oo diyaaro kasta ka degi korta may bataas inka dorana tumman ishansin oo dhalata dhammaata eelbuur shabaaba kata kor degan wal duulumaad ee sheegaase teesinaad birirf makale warkaas ma weli cilmi bowdhareed ka soo xigata war bowdhari iyo hoodan jaceelay u dhinteena allah u naxariisto war xildhibaanadaas ceelbuur garoonka ka dhisay bu'aalani maxay ka yidhaahdeen war eedakiin ogne inoo bu'aalaada fadaas dekad inoo lakiinka dhis laakiin sabarka badi war barnaamijkan ha ku mashquulinina runta siyaasadda qarnigaa la yidhaah yaa qalad miyaa mugas sharciyaa ka yaali sharciyow xaal qaado kii heesaay waxaas yidhi dabay iyo dahraan tegayona ileen dabay iyo dahraan tegayona dayuurado laygu doonayay sidii dahab lay dawaaliyaayo aan gabiibkaga biqadarinayay ku dhiga anna kaa dulboodaay hawatulhawaalakal kaan u jiir go'aye waa goronkiye alla tolow gormay dhisi doonaane war heestaa ku dheelina nin daar ku jiro daruur ma arkaa la yidhi ileen xaalay roob
giibaa da'aye war garoonkaa sheegaysaan aan ku soo xasuustay dowladda soomaaliya waxay tidhi war sheekh agteeda ayaan garoonka dhisaynaa kii aada xadabakaare oo kale u noqday tidhi hayehe ma gooftaydii haddana garoonaa laga dhigaa loo soo midiya sahaha cali guudle waa bixi maadaa hor istaaga kara war dekadda hobyo madaxweyne qoorqoor maalinta lay doorto maalinta ku xigta dhisbaan ka bilaabayaa buu yidhi afow yeelka uurowsa allaa ku og domba marayso badaan domba marayso domba marayso majabajawaysidaaye awadaaca weyne asooy isii waryaa warwar ma haysiine cabdirashiid janan markaagaha gobaday makeeyaa soo dhiibti ma xabsigayow alaab isaga hilmaamay war ma jenaraal sikiyuu soo wacay wareedhaha nala waalaline markii sakiya dhehaysa waa la waayey muqdishow joogaa layidhi weliba 2 maalmood dambuu sii joogaa layidhi subaxii dambena barqadii indhahoo shanta ayuu doon loo soo diray raacaa layidhi casarkii dambena wuxuu kafee ku cabbaayaa layidhi kismaayo marka waxaan la yaabanahay dadka xaal loo wareerinaa ma cayaarta dheesha laga dhaafo ummaddan ewelaa qarax lagu wareeriya xaa haddana beenta loogu wareerihaa warnimiyow ayaar o mayba jirtee aan isdhumiyey hal yeeroy war beec baro amba been baro horaa loo yiri war janan markuu kismaayo tegey wasiirkii qorshaynta jubbaland waa isxasilay ma godkiisaa biya ugu galeen war cabdirashiid janan qishkii uu ku baxsaday roobow muxuu sii waayey war qishka janan ku fakaday axmed madow baa ka soo shaqeeyey roobowna lafta gareenaa ka hurdaaya lafta gareen usnaftiis ma fidhiyo laakiin sharuudihii roobow laka dhiilahay weli ma habuuyna war hadalka dhegaysta war aadmigumada ayaa la yidhi waana abidkii wadaadkiiyo siyaasiga qarnigu wax isma dhaamaan labaduba waxay nugu noqdeen wadiya laayaan war kuwii sheekh shaakir u banaabaxay maad ka mid aheedoo digrinay ara waxaas waa laga tagaa banaanbixii qoorqooraa ka dambeeya yahuudae aryaadhaha waxaa dhanood beriga sheegaysan sharciyaa ku yaalan nagu kala kaxeeya ma naga taga sharcigu haydin qabtee